بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين آمين آمين. أما بعد، أيها السادة الأعزاء، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ولا ليال مرسد أحد إيجا قدوم سلام ديران، سلام كالإلاب سلام كتمت قلبي ولالكين، قلبي ويلكين، قلبي ويل صومالية أو إذن لجعل خير الدنيا يفمد آخره. ولا ليال موضوع أن دونيه maanta oo ah maalinkii inoogu dambeeyay shirkan dhalinyarada Denmark 2013 ilaahay kama dhigay sanadii ugu dambeysay. sanado badan oo khayr badan ayaa soo socda, runtii ifaalaha aan arko ka fiican sanadihii hore. mawduuca aan doonayo inaan kala qayb qaato waxa weeyaan wajiyadiina ka garanaya mawduuca anigoona aqoon wajiyadiina ii sheegay. mawduucan waa mawduuc runtii xasaasi ah, waa mawduuc maanta aynu u baahanahay, mawduuc aad iyo aad u culus. waxaad ka garan doontaan inta aynu ku dhex jirno. walaalayaal, waxaan arkaa oo hortayda aan ka arkaa teenage dhalinyaro qulqulaysa, rag iyo dumar socda. xaggee u socdaan talow? waxay u socdaan guriga qiimiga badan, guriga qaaliga ah, guriga daafi'a ah ee kulul, guriga udgoon, guriga carfaaya, guriga barakaysan, guriga wanaagiisa aan la soo koobi karin ayay u qulqulayaan raggan iyo dumarkan. guriga waa guri ay galeen, waa guriga ay dhalintu doonayso imika inay galaane waxaa hore u soo galay ambiyadii alla baraka badana, waxaa hore u soo galay rusushii, waxaa hore u soo galay saalixiintii. waa guri aan loo diidaynin dadka masaakiinta ah, waa guri ururinaya muluugtii iyo masaakiintii, madaxdii iyo shacabkii. waa guri aad iyo aad u barakaysan, waa guri runtii qiimigiisa iska leh. gurigan talow waa gurigii guurka alla barakaysnaa. waxaan la yaabay markii la ii dooray mawduucan oo la yiri ka hadal, ayaan waxaan galay meediyaha internetka ayaan galay, mise waxaan arkay culimada imika ila fadhida ee aad casuunteen idaylkeed ayaa ka wada hadashay. sheekh ma jiro ilaa uu ka hadlay mawduuca. waxaan iri talo maxaa loogu dooray mawduuca, maxaa sida loogu jecel yahay? markaan weydiiyay war maxaad iigu doorteen ayaa waxaa la yiri dhalintaa jecel, dumarkaa jecel, raggaa jecel. ma waxaan la jeclaanin ba? markaasaan waxaan sii ogaaday anigoo ogsoona inuu qiimi badan yahay. markii la yiri dhalintaa dooratay sanad walbana doorata ayaa wallaahi aan sii jeclaaday anigii. ma waxaan la jeclaanin ba? guriga aan ka hadli doono caawa waa guriga guurka weeyaan. walaalayaal, guriga waa guri uusan nasiib u lahayn wixii under age ah 15 wixii ka yar.
ilaahay soo gaarsiiyo gurigan waxaa nasiib u leh wixii qaangaar ah ee 15 ka weyn gurigan waa guri inta ku dhalataa ay ka ayaan badan tahay wax walba maxaa wacay gurigan ayaa ayaan leh waa guri la ilaaliyay xuquuqdiisa inta ku dhalataa waxa loo qorayaa maalinka ay dhashaan aydiba u bilaabanaysa soo ma jeceliin ayd inaad qaadataan ayd khasab ah ayuu kii ku dhashaa uu yeelanayaa allah u yeelay wuxuu helayaa xubna ama wuxuu helayaa laab diirisa wuxuu helayaa hooyo tababarto u taagan tarbiyadiisii iyo dhaqaaleyntiisii iyo ayuu helayaa wuxuu helayaa waalid caaqil ah oo u shaqeeya oo isaga u adeega ayuu helayaa wuxuu helayaa sharci iyo maamul wuxuu helayaa ku khasbaya waalidiinta in ay sidaa ku dhaqaaleeyaan in ay koolkooliyaan in ay madaxa saaraan in ay hadhicin oo hadheeliyin in ay dhahaan inta ku dhalata guriga in guriga ay siday doonaan ugu tamashleeyaan ay cadaalad helaan oo ay siday wax allaale waxay doonaan ay ka helaan la ilaaliyo la xifdiyo ilaahay baa u khasbaya oo sharci dul dejiyay waalidkii guriga aasaasay ilaahay wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya dadka guriga ku dhasha dadka dhalay u ahaa sababka isagoo ilaahay uu la hadlayo waalidiintii ayaa waxa uu leeyahay xabiibku waxa uu leeyahay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi mas'uuliin baatihin idaylkiin qof walbana wuxuu mas'uul ka yahay wixii la raaciyay guriga hooyo iyo aabe labadii aasaastay ayaa mas'uul ka ah waxayna mas'uul ka yihiin dadka lagu aasaasay guriga iyo inta ku dhalatay ayay mas'uul ka yihiin waaka uu dhahayo xabiibka salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi warrajulu raa'in fi bayti ahlihi wa mas'uulun an ra'iyatihi aabaha gurigu mas'uul ka yahay wala weydiinayaa maalinka qiyaame haddii ilmaha ama dhalinta guriga barakaysan ku dhex dhashaa hadday gaajoodaan isagoo waxaya hadday meel ka dhacaan hadday ooyaan hadday murugaysan hadday murugoodaan hadday dhaxan qabato hadduu oon qabto haddii ay cadaalad waayaan hadday waxbarasho waayaan hadday xanaano waayaan waa guri waxaas oo dhan laga helayo weeyaan gurigan ma waxaan la jeclaanin baa away hooyadii iyana والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها hooyaduna waxay mas'uul ka tahay guriga ninkeeda isaga dhisay guriga ninkeeda ayaa la yiri gurigeeda lama dhihin guriga ninkeeda maxaa loo yiri dhibka guriga oo dhan ninka dusha loo saaray inuu guriga keeno ma aha gabdhahan maanta guriyaha la ordaaya ma aha gabdhahan maanta iyagii wax guursanaya gabdhaha daa'iman waxay u baahan yihiin xanaani u baahan yihiin jacayl bay u baahan yihiin mawadday u baahan yihiin daryeel bay u baahan yihiin hogaamin bay u baahan yihiin ma aha gabdhaha aan ka sheekaynayo aayadu ka sheekaynayso gabdho hormuuda ma aha gabdho hor cararayo hor digdigleynaya ragga ma aha waa gabdho quraarad ah jawhar ah luul ah dheeman ah in la huwiyo u baahan in la ilaaliyo u baahan in la xanaaneeyo u baahan in la dhoobdhoobo u baahan maxaa wacay waa qoftii ku hayn lahayd ubadka generationka soo koraya ilmaha lagu dhalay guriga barakaysan maxaa wacay gurigan barakaysan waxa laga doonayaa hooyadu in ay ka soo saarto jiilkii bari hogaamin lahaa caalamka walaalayaal
guriga waa guriga ay ku dhalanayaan ilmaha yaryar ee qurato caynka ah ee uu ina leeyahay xabiibkeenna ku salliya ha ilaawina صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يا سلام حاجة كلا لجاها لأن جورجان أهين قفكوا إلهي كابتلي أو كامتحام أو أوسي أو كإرزاقه لبد مرأة أو جورجان بركيسن كسيو أو إحسان فلا sida loogu dhiirinayo fiiri cashaan guriga qiimi badan wax walba ku dhexdhashaana qiimigaas u yeelanaya oo qoodiya oo ihsaan fala wax bara huwiya dharjiya xanaaneeya ilaa ay ka qaangaaraan u guuriya kunna lahu sitran min an-nar waxay waalidka u noqonayaan cadaabkii gaashaan uga noqonayaan dadka ku dhashay guriga waalidkood ayay cadaabka ka celinayaan guri ka qiimi badan miyaad aragteen waa guriyaha aynu dayacanay waa guriyaha aynu baabi'inay waa guriyaha aynu albaabka u xidhnay nalkiisii aanu daminay waa guryo lagu canaananayo waalidkii mas'uulka ka ahaa gurigan aasaaskiisa oo la leeyahay haddaad ka soo bixi weydaan inta gurigan ku dhex jirtaa waxay leedahay miise gooni ah ayay leedahay daryeel gooni ah iyo xanaano gooni ah haddii loo dhammaystiri waayo oo caydhi iyo xanaanadii loo qoray iyo gunnadii loo qoray ay heli waayaan farxadii loogu talagalay ay heli waayaan waalidka waa la ciqaabaya waxa laga xarimayaa jannadii maxaa wacay guriga waa guri qiimi badan guriga lama rabo in ish ay saxar uga dhacdo waa kala leeyahay ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi إلا حرم الله عليه الجنة مجرى أدون الراعي رعيت حاس عيال لبو سدح أفر هل بأوير نفس الضوير أو لمنية مجرى إلا الراعي رعيت مسؤول لقدقي حديثك هو عام لكن كان خاص وقدقيا مجرى إلا الراعيت للراعي أو لمنية مالك لمنية إساقو غشي oo khiyaanay raciyadiisii ma jiro ilaa sidaa hadduu ku dhinto xarama allahu calayhi aljanna alle wuxuu ka xarimayaa jannadii buu ka xarimayaa walaalayaal gurigan aad arkaysaan dhankaa marka aynu ka eegnay waa lagu sii qulqulayaa dhalinyaradii raggi iyo dumarkiiba ku sii qulqulayaan waa galayaan ma guri aan la gelin baa waa guri looga horreeyey dadkii wanaagsan ay uga horreeyeen laakiin bal dhinacan kale aynu ka fiirino ilinkeelu halka ku leeyahay ilinkii kale wax ka baxaya male ilaa la'iim ayaa ka baxaya doqon ayaa ka sii baxaya gurigan guri laga baxa ma aha waxa ka sii baxaya ee aan arko ee gurigan ka tagaya waa maangaab aqli gaab wax walba gaab weeyaan laakiin haddana kama samro waa guri aan laga samri karin kii shalay ka baxay waxaad arkaysaa isagoo haddana gadaal u soo jaleecaya oo doonaya in uu soo galo waa guri aan laga samrin wuuna ku soo laabanayaa xaqiiqadii waxa aan rabo maanta marka inaan ka hadlo waxa weeyaan guriga qiimiga badan sidii loogu waari lahaa sidiina ugu wada jiri lahayn sidii aynaan uga baxeen taa ayaan doonayaa inaan nafsadayda iyo nafsadiinuba aan ku waariyo walaalayaal marka hore waxaan leeyahay guriga waxa wada degan waa laba cunsur weeyaan waa nin iyo naag ama waa rag iyo dumar waa wiil iyo gabar waa hooyo iyo aabbo guriga dadka degan waa marka hore dadka doonaya guriga inay galaan waxaan kula dardaarmayaa duco waa shayga ugu horeeya inay ilaahay baryaan guriga guri barakaysan weeyaan in
wadada guriga loo marayo ilaahay in uu ku aadiyo in ay baryaan ilaahay waliba goordhow inuu ilaahay ku aadiyo wadadii runta ahayd sax ahayd ee guriga ku geyn lahayd mar allaaliye markii ilaahay kugu rido waxa galaya guriga waa rag iyo dumar ragga haddaan horta la helo ragga haddaan la hadlo ragga waxaan leeyahay ilaahay ha laga baqo guriga waa guri barakaysan guriga guri lagu ciyaaro guri lagu nasiibsado ma aha guri lagu la taabsado ma aha guriga waa guri islaami ah weeyaan waxa lagu aasaasayana waa shariikatul hayaa guri muslim ayaad aasaasaysaa ilaahay uga baq guriga ha geynin aad u dhageyso rag yahow guriga ha gelinin hana geynin hana u dhawaynin gabar aad ka soo qabatay shaarica ha geynin gabar aad meelaha ka soo jiiday shaarica aad ka soo jiiday aan la garanaynin huwiyadeeda halkay u nasab sheegato gabadha ha geynin guriga ha gelinina ha fasahaadinina guriga ma qaadi karaayo ma xamili karaayo haweenkana waxaan leeyahay ilaaliya xuquuqda waalidkiin guriga qiimi badan baad ka soo baxdeen aabe iyo hooyo xaqoodii ha luminina ha noqonina gabdho shaarica laga kaxaysta ha noqonina shaarica idinma dhalin luuqyada idinma dhalin bannaanka cidlada ah kama aydan soo bixin dhulka ma aydan soo bixin geeda maahidiin waalid baa idin dhale hooye aabbo hooya idinku soo tacbaantay 9 bilood idinku siday fooshi dhalitaankii dhiman gaartay ilaahay baa badbaadiyo idin ka soo saaray 2 sano haddana dhabta aad uga xaareyseen oo kaadinayseen idin daryeelaysay hurdadeedii oo dhan bay idin diiday xaqeedii aaway ilaaliya xaqeedii idin soo korisay ilaa aad kala ekaataan ubaxan aad ka noqotaan quruxda badan wax idin soo bartay markaad qaangaarteen oo aad bislaateen oo ay mirihii ay dhadhamin lahayd hooyada miskiinta ah ee timaheedu ciraysteen indhaheedu gaabteen oo dhegihii yaraadeen oo dhabarkii soo gotay markay idin dhadhamin lahayd markay idin macaansan lahayd markay ma aragtaa indhaheedu idinku qabowsan lahaayeen haddii nin dhurwaa ah uu wadada idinka kaxaysta ka warrama so ayaan darrama aha wabilwaalidayni ixsaanan xaggay martay ilaahay islaamku si ay u ilaaliyaan xuquuqda waalidka waxa loo yeelay waalid waxa loo yeelay wali baa la yeelay aab baa la yeelay awow baa la yeelay adeer baa la yeelay walaal baa la yeelay ilm adeeraa la yeelay waa gabadha ehelkii ay ka soo jeeday maxaa wacay gabdhuhu waxay u baahan yihiin ilaalay u baahan yihiin waa dad daciifa haddii dhurwaa mid ciyaal suuqa mujrim oo weynaaday faajir ah oo meelaha ku halleeyo maxaa la rabaa oo ibliiska sibqiyo halkay ku soo noqon lahayd gabadha cirdigeeda iyo sharafkeeda in la ilaaliyo gabadhu waa bulsho gabdhuhu waa umma jiil dhan bay barbaarinayaan waa misbaaxul buyuut waa miftaaxul buyuut gabdhuhu ehel baa loo baahan yahay rag ilaaliyaa loo baahan yahay ha ka qaadin xishmadii ay kugu lahaayeen waad dhimanaysaa adoontii allah waad dhimanaysaa barakaad doonaysaa guriga aad u socotid ee aad dhurwaaga shaarica ka raacday ee uu halkaa ku geeyay ma waarayo wallahi ma waarayo guriga duco u baahan yahay waa guri barakaysan in lagu galbiyo adigoo sharaf leh qiimo leh ehelkaagii faraxsan yahay lagu alalaasayo oo ma aragtaayay aad dadku u farxad badan yihiin wajiye ifaya guriga in lagu geliyo ayaa la doonayaa caalamka dhan u ogaado heblaayo in hebel u aroosay halka la geeyay taas la doonayaa malaa'iktiina waa farxaysa alle uu kugu farxaya ubadka hooyada gabadh iyo wiilka sida lagu galbiyo maxaa ka dhalanaya kula tahay waxaa ka dhalanaya ubad saalix ah waa ubadka aan u baahannahay ma rabno ubad shayaatiin ah aasaaska marka maanta la joogaa waa kuwa dhalinyaradii rag iyo dumarba guriga barakaysan ay ku sii socdaane faajmilu talab doonistu waa inaad wanaajisaan waxaan rabaa marka inaan kala sheekeeyo laba guri oo kaliya ayaan rabaa inaan ka sheekeeyo laba hooyo baan rabaa maanta inaan kaga sheekeeyo aan dhagihiina maqlashiyo
si gurigan loogu waaro idaylkeen waa maxay tan koowaad waxaa la yiraahdaa umaamata bint al-Harith umaama bint al-Harith wa hooyo ayaan badan wa hooyo caaqilad ah wa hooyo gabadheeda jecel wa hooyo misaalkeed iyadoo kale aan la arkin guur walba marka laga sheekaynayo waa hooyada tusaalaha loo soo qaato waana waagii jaahiliyada weeyaan islaamkeena hortii iyo hooyada kale cagsigeeda ah umaamata al-Casriya hooyooyinka casriga ah waa hooyo taa kale gabadheeda guurinaysa guriga barakaysan bay u wadaa ducay u wadaa gabadha guriga inay ku waarto way la sii dardaarmaysaa tanna iyana way la dardaarmaysaa umaama al-Casriya laakiin maxay kula dardaarmaysaa guriga in ay tagto oo ay gubto teen hormariya ma hooyada wanaagsan mise hooyada khariban waxay ila tahay inaan takhriban hormariyo maxaa wacay waxaan rabaa barnaamijkeenu inuu ku dhamaado khitaamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun sida inaynu ku kala tagnaa rabaa markaa dhamaadkeenu inuu noqdo miski wax walbo carfoonkii ugu carafta badnaa wax walbo macaankii ugu macaanaa inagoo wada macaan akhiiran laba culimadii waa joogtaay sheekh maxamed cali waa joogay abu talha culimadii waa joogtaay sheekh bashiir shiile ya maanta inaan loo kala tagin laba halkan waalidiintina alxamdulillah hore noo soo raaceen maanta halkan in ay ka dhacdo ya saacado inay ka dhacdo waxaan hore loo maqal lagana sheekeeyo walaalayaal ukaalay hooyada khariban umaamata al-Casriya gabadheedii ay habeenkii intay xaradhay dhoobo marisay cusbur marisay dhistay rijiyeysay ayay la dardaarmaysaa dardaarinkii ugu dambeeyay waxay leedahay ragga wad ogsoontihiin carbeed ama muslimiintii hore saddex shay bay ku faani jireen seefta ay ku dagaalamaan gaashaanka ay isaga difaacaan wixii khatar ay ku soo socda iyo waranka ay ku weerar tagaan saddexda shay lagama taaban jirin ninka hadaad waranka iyo seefta iyo gaashaanka ka taabatid ya xiniyaha siibtay waa saddexda ay ku dhaartaan saddexdii bay kala hadlaysaa waxay leedahay hooyo ma rabtaa ninka aad caawa aad u tagay sidii aan ku dhiseenna ma rabtaa hooyo in aad gacanta ku dhigtid ma rabtaa haabay tiri hooyo oo dhaqankiisa aad baratid oo aad isagoo dhanba aad faraanti ka dhigatid hooyo ma rabtaa ha hooyo oo ku dardaarmaya dardaarankayga qaada waayahay tiri hooyo waxay tiri marka hore ibda'i bi khal'i zijji rumhihi fa in sakat fakhla'i sinana rumhihi fa in sakat فاقطعي اللحم بسيفه واجعلي من ترسه وضما فإن سكت فضعي الإكساف على ظهره فاركبيه فهو حمار waxay tiri waa marka hore waxaad ka bilowdaa hooyo waranka gadaal wuxuu ku leeyahay biryar ayuu ku leeyahay horna wuxuu ku leeyahay bahashii defalaarta ahayd ee wax galaysay tan dambe waxa weeyaan marka la tuuro miisaanka inaanu leexleexanin oo uu cusleeyo bahalka waxay tiri hooyo marka ugu horeysa waxaad sameeysaa caawa guriga marka aad tagtid warankiisa intaad soo qaadid birta dambe ee miisaanka ka bixi hooyo fiir markuu jigiis haduu aamuso hooyo raali buu ka yahay maalinka xiga waxaad ka bixisaa afka hore ee waranka ka siid jaa warankii waa laga takhalusay waa ul caadi ah oo la iska tuurayaa hal xiniyeysiti waxay tiri hooyo haduu aamuso seefta soo qaad bay tiri hooyo hilibka lagu soo gado ku jarjaro mindi ka dhigay seeftiisi seefta dhameeda ninka day uu xiniya u ahayd waxay tiri hooyo mindida ku jarjaro mindi ka dhigo laakiin lafta ha uga taabanin mindida gaashaankiisana soo qaado hilibka hoos dhigo alwaaxa hilibka lagu jarjaro gaashaanka ka dhig seeftana mindi uu isticmaal haduu hooyo aamuso seeftii waxaad ka dhigataa baangado lafaha uga jijibi bay tiri lafaha qaac afka dhan habeele خلاص سيفتي ورنكي gaashaankii haduu hooyo aamuso هوي هيريدا سو قادو دبرka ka saar fuul bay tir waa dameere kaas
dardaaran fiican Soomaa bimacna wax walba hooyo waa marsiin kartaa weeyaan oo hooyo caaqilad ah aqliga sanadkan saasay gabadheeda kula dardaarantay oo kale hooyadan kale labadana isku in raacinaya hooyadan kale iyana sheekada waa kharaja walam ya'ud oo baxay dib uma soo laabanin waxay tiri waa laba gabdhood sheekaysanaya hadal muhiim ah weeyaan waa isu sheekaysan idaylkiin guriyihiina waad ka sheekaysan inta guriyaha leh wuxuu tiri waa fakhriya iyo i'tidaal fakhriya iyo i'tidaal labada gabdhood sheekaysanaya i'tidaal ba sheekaynaysa marka labaduna way guursadeen i'tidaal waxay leedahay nin bay leedahay mas'uud li yiraahda markaas fakhriya maalintii dambe waxay u timid i'tidaal gurigii markaas fakhriya waa indho way yaaban tahay i'tidaal oo ninkeedii amraysa kaalay mas'uudow orod mas'uudow fariisa mas'uudow jikada gal mas'uudow dharkii ma dhaqday wax walba xaadir wali xaadir 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 suuqi ma aaday ha ma keentay hilibkii ha ma karisay qadadii ha ma dhaqday alaabtii ha fakhriya afku bay qabsatay nin sidaas oo kale dima haysatiyada ninkii markuu baxay waxay tiri na i'tidaal in kaar qabto na waa maxay ninkan kan ninba ma ahe xadacay tiri warkan oo kale ilaahay un baa laga helaa waxay tiri sidee ninka aad sidaa oga yani sidee u tarbiyeysay seed ku yeeshay sidaan maxay tiri way faanaysaa moogtay indhaha intay kala gedisay tiri waxay tiri البركة في وصية أمي يا فخرية بركة waxay ka timid dardaarankii hooyaday adi hooyada kulama soo dardaarmin ana hooyada ila soo dardaarantay barakadan xagga waay oo maxay ku tiri hooyada way u sheegaysaa marka sirtu isu gudbisan Soomaha waxay tiri hooyaday maalintan soo baxaya waxay ugu la dardaarantay waxay tiri gabadhaydii is'alini ana 'an ar-rajul aniga i weydii raga hooyo أنا هويدا أنا إن بدر سو أركي هوي رجع أنيجي يويدي هيه الرجل ليس له أمان رجع أمان مله سكي إلى له هوي رجع لما آمن يتري كو الرجل يأخذ المرأة لحما ويرميها عظما هوي يدو هلب أيو رجو دمر كقاتا يدو هلب أو ضيلا أو وح أو تجونا عفون أيو قادنا يا وحصات تورايا دبدا كسهرانتنا يا يدو الله فيه هلبه انتو صوت دمستو صوت تورايا هوي انا رجع كاقاني لهدحي الرجل يحب المرأة التي تعانده ولا تطيعه هوي رجع وحي جعليين ناغها ادق ديبا عناده او ان اطيعين اسك الى هوي لذلك اسمعي نصيحتي جيدا هوي دردارنكيga aad dhigeysay tiri maanta waxaan ku siinayaa tii aad ku aflixi lahayd ku guuleysan lahayd aad adduunyo aakhir ku liibaani lahayd waa maxay waxay tiri hooyo markuu ugu horeyso guriga aad tagtid ninka waxay tiri maalinba maalinta ka dambaysa baalkii u soo baxaba ka rif bay tiri hooyo baalasha dhan siin bay tiri horta ninka marka hore kadibna waxaad ka dhigataa hooyo faraanti gacanta kuugu jira oo sidaa doontid ugu laafiyootid oo aad isaga socotid oo ku raaca oo aana dhib kuga haynin oo aad ku xaragootid ba ka dhiga golonka gashay tiri ninka kadibna hooyo noloshiisa ku adkay bay tiri ninka furaha u qabo hadduu ku amr diid waa marka hore hadduu ku guulguulo caay kirdhe haddii uu ku dharbaaxo alaabta soo qaado hooyo ka soo tagqiil baad haysataaye guriga aabaha hooyo waa ku furan yahay anytime waa guriga aad ku soo kortay waad iman karaysaa hooyo waa lagu soo dhaweynaa mar kale daa'iman waa ku furan yahay walaalaha maxay sameynayaan iyaga edeb baraaya ninka isaga ka soo tag adiga guriga aabaha imow iyaga edeb baraaya ilaa uu ka garto inaadan ahayn binti shaaric gabar wadada laga soo guursaday hooyo tii waa yaabanta fakhriye ahaydo afkii iyo gacantiba isku dhagay markaas ay leedahay na i'tidaal dardaaranka ma ku dhaqantay bixadaafiriha halkii ugu dambeysay waliba ilaa uu ninkii sidan aad arkaysid uu ka noqdo farta aan ugu fiiqo hadalku waa hadalkayga
ra'yiguna waa ra'yigayga ya salaam dardaaranka markii siisay doqontii kale faqriye ahayd ha baxdo ha tijaabisay bal iyadana tii kale 2 bilood kadib ayaa la isku soo laabtay 2 bilood kadib ayaa la soo yimid naa i'tidaal iyo waran ma fiican tahay waa ladnahay ka waran reerkii ka waran Mas'uud ya waa Mas'uudkee maxay tahay Mas'uud ka waran waa Mas'uudkee dee ninkaagii waa ninkii oo ma nin kala lahayd soo Mas'uud ma hay ninkaagii raxmo ogid ninkii waa kala tagnay tir 2 bilood ka hor xaatiri waa kala tagnay inkaar adiga ka waran ninkaagii inkaar qabto dardaarankii hooyada gurigeygiina wuu burburiyay intaan arrinkii dardaaranka hooyada aan intaan qaatay ninkaygii 2 bil ka hor sidoo u baxay ilaa hadda iguma soo laabanin labadii reer waxa burburiyay dardaarankii i'tidaal hooyadeed in badan oo waxaan aqaanaa idinkuna aad taqaanaan hooyooyin ah oo gabdhahooda runtii ula dardaarma ma taqaanaan seefta iyo waranka iyo gaashaankii waagii hore raggu xoog u ahaan jiray maanta waa shaqadiisa waa sharafkiisa waa gurigiisa waa hantidiisa waa waxa laga la dagaalamayaa ragga inuu dhaqaale helo kumigi isna wuxuu rabaa inuu lacag ururiyo inuu isu geeyo inuu hanti yeesho iyo hantida u sameeynaya gabdhayow idinku idin sameeynaya raggina idinku idin sameeynayaan laakiin waxa laga yaabaa qaar hooyooyinoo gabadhii casriyada ahayd warqada ah ii keenin sheekh oo kale ah ayaa waxa laga yaabaa inay ula dardaarmaan hooyooyinkood baa laga yaabaa oo ay dhahaan naaya ninkaaga ka ilaali khasnad inay wax u gasho ka ilaali waa safety uga cayaar safety si hilib ku jarjara weeyaan ka ilaali habeenkii inuu meelaha tago waa xurriyadiisii ogow waa inaad waqtiga ku kontarooshaa jeebkiisa waa inaad ku kontarooshaa waa inaanu ka agtagin way tijaabinaysaa markay gabadhii khayr qabta ah waxay leedahay ورنيهو ما أنت شقدها آذن إلى الجو ويرعى جسنا هاي أما مالها آذن شقدها يرتاح إنك جوجيسه أخيرا من كده شقدي سنة ولا عيرنا يا كقدرت شقوين كينا ما هكو أفريقيا وكلو بالله ما غنان كرو لجوين كرو تما حواي و جدت كاد حكود عن تنقرعي فدي حتى وكري الأدين صومها وعد إلى شتان شقدينا مركا حديد لو برسد حبري هذا كجبد أرعى بمعنى وامحي والصرف الدنيا هذا ونحن كلنا هاي ونعشي ورجع واشقيسته جوري كريديسي مركب بيلش كسر دبر دعان أخيرا جوري جوا بربرايا هو يدا واد مقشين صومها أوكي مسكي يوكالي مرك ولا ليال أمامة بنت الحارث وحي أهيت هو يهمتي هو يا أخي هو ماشي قدام بيسي واسد هو يمكن كربو قبلها يهرف دي قروح ضبضن مركب هو ينقضان إن سدا ودغمان وحيدا شيء قبر لي هذا إياس بنت عوف إياس بنت عوف قبر باريض أو دعاء قبتها خير كوا خير لظن وحا قبر لو قورينا يا ملك كنده ملك دلي هذا بقر كيدي وأن تاجر حارث ابن عمر بالي هذا وحكسو دونتي شارع كما أنا قرسنين وبقر ودوينك كسو قبسن كرا لكن قري وقبر له قري بركيسان وجورجا إذا دحيي شارع قبر لا يقبتيان للجلين كبركوبي مايه وكهل عاية هو يدي أبيه وش شرف لأقدونتي والله أقولادي ما دام كفء ويهي هو يدي وقبر لي هو يدي وانك أدستي قبر لي وأحرر لي دردارنك قدام بي مركي كور قبر لي وقر حسي أي إمي كان والحدث قدام بيسي وأي قبر فاروق يسقوري جدي أيا وحي كقر حنيساه gudaha ayay ka qurxinaysaa haddana ruux ayay u yeelaysaa way la dardaarmaysaa dardaarankeedii ugu dambeeyay markaas waxay leedahay hooyo waxaad ka tagaysaa gurigii aad taqaanay gurigii aad ku dhalatay gurigii aad ku soo barbaartay waxaad tagaysaa guri aadan aqoonin ehelkii aad taqaanaad ka tagaysaa dad aadan aqoonin baad u tagaysaa walaalo iyo aabbi iyo waalid baad ka tagaysaa nin aadan aqoonin baad hooyo u tagaysaa هذا لا أقيم بدن مركز وحي لا هويو كوني له أمة يكن لك عبدا
hooyo adoon u noqo oo markuu saa ku soo fiiriyaba waxaad garataa waxa uu doonayay laabta uu ku hayo ula bood markiiba markuu Caaisha ku dhaho heede oo bood markiiba adigoo xishmeynaya yakun laki abda adigana adoon buu ku noqonayaa u bilow hooyo gabadheeday waxay ku waaninaysaa ilaa way jeceshahay way ku soo dhibootay waxay ku waaninaysaa in ay ninka u bilowdo wanaaga ceebna ma aha hooyadu haday gabadheeda ku waaniso in ay wanaaga bilowdo maxaa waxa islaamkeena oo dhan baa wuxuu nagu waaninayaa in aan wanaaga u hormarno oo hooyo caaqilad ah ma aha rajciyo ma aha wax laga soo tagay ma aha reer baadinimo ma aha waxa maanta lagu tilmaamo ma aha ee waa horumar meeshii ugu dambeeyay aqli meeshii ugu dambeeyay weeyaan in hooyadu gabadheeda ku waaniso ninka inay adoon u noqoto isagana uu adoon u noqdo markaas waxay tiri hooyo waxaan ku siinayaa 10 waana ah oo ku noqdo kayd iyo waano hooyo 10 ayaan ku siinayaa badan oo gabdhaheena ah waa la siiyay wayna qaateen in badanna waxa la siiyay umamata al-asriya ayaa siisay waano wayna qaateen natiijadana waad garanaysaan ideelkiin waa dhacday markaas waxay tiri hooyo tan hore iyo tan midda koowaad iyo midda labaad laba isu raacisay waanada maxaa wacay faraskiiba u taagan gabadhii waa la sugayaa ma rabto in ay daahiso aroos lagama daaha lagumana daaho u boobsiinaysaa markaasay tiri hooyo midda koowaad iyo midda labaad hooyo waxay tiri kula dhaqan qaneeco kula dhaqan iyo raali ahaansho iyo bixusni sam'i wa taa'a iyo hooyo in aad dhahdid haye oo aad ogolaatid wax walba hooyo labadaas amarti hooyo hadii aad ku aragtid wax aan maartay ku raali noqon haduu guriga yara gaajiya hooyo ku raali ah dhaqankiisa sidoo yahay hooyo yaani qaneeco meelaha ha eegin markaad meelaha islaamaha kale ha eegin guriyaha kale ha eegin hooyo intaan yare aad haysatid ee aad ku bilowday hooyo ku raali noqo oo sidaa kula soco wax walba uu ku faro على الرأس والعين ده طيب تي لباد يتي waxay tiri tii saddexaad iyo tan afraad hooyo raadi bay tiri oo ilaali bay tiri halka ishiisa iyo sankiisu ay ku dhacayaan ishiisa halka ay ku dhacayaan hooyo ilaali allah hooyo waxaad kala ilaalisaa halka sankiisu qabanayo oo yaanay ku dhicin ishiisu yaanay kaaga dhicin hooyo wax xun yaanu sankiisu ka urinin hooyo illa atyab riih عرفتي وقدم بيسي وعرفوني ما هني وحيلها هوي النظافة كو ددال إشي سجوري مركو صقله ما شاء الله سريرتي جوجلان جوريجو نظيفة علمية وذا قرحان درك عادي عقبتي ما شاء الله ماشي يقدم وذا دي نور على نوره هوي حاركو كو ددال تايدا وإشي سأرهونو يعني وحن قبلن إشي سهويو هايه سانكينا هوي مركو صقله يعني كعرفين هوي تونتي يبصشي أجل جلسي بربرونيجي درك أدقيسي أو مدي كرو محلها بلاي وحاس هوي جكدي يعني كعرفين إنك هوي مر الله لمركو إيمانية واتقاناي هوي 5 دقيقة وبوبسيسا أنت شاور قادتي درك روح بدن أنت أحرتي وح قرحون أو ما أرتحور العين كو قابل إنك يريد مركا فرتي إشي سنه كو فرح سنكي سنه ما شاء الله مسكي يا آدي وتقول هوي بالفعل تردارنك ما شاء الله ويبس ليسي ننكا سنين لك رايو واي ما كبحيو قريقو والله إنها نكبحيني gabadhaasna halkaas uu saaraya maxaa iyada kasbatay tadxiisa meesha gabadha iyada waxay tiri hooyo xadiiskan waa ku ahaa markii la weydiiyay xabiib horta wuxuu yiri ida sallat almar'atu khamsaha wa xabiibka dhahay salawaatu rabbi wa salaam alayhi ninka in la ateeco sam'an wa ta'an wax walba oo waliba hoos looga dugo laba heli maaye ya indhaha laga galaa faraha laga gelinaayay indhuhu haday baxsadana ayaan leenahay wuxuu leeyahay xabiibkum ida sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat min ayyi abwab aljannati sha'at la ilaha illa allah haday tukato gabadhu shanteeda bisheedu ay soonto
oo ay farjigeedina ay ma aragtaay isaga maahan wax kale ay ka ilaaliso oo ay ilaaliso xubinka taranka ah ninkeedii ay ateecdo waxay ka galaysaa 8 albaab ee jannada kay doonto xor weeyaan wa ahlu janna la ilaha illa allah jannadi deeya ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ma isugu darsamay gurigeedii oo ay ilaaliso ubadkeedii oo ay ilaaliso iyo waxa isugu darsamay jannadii rabbigeed oo ay ku guuleysato ayaan ka fiican iyo nasiib ka wanaagsan miyaad aragteen waayahay takale waxa la weydiiyay xabiibka salawaatu rabbi wa salaamu alayhi haweenka la qabatay u khayr badan tee u wanaagsan wuxuu yiri khayrun nisaa التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر يا سلام يا سلام إله قبلها نسيدا نوغيال يا رب يا رب وقبلنا حداد في ريست كفر حد جلسة كفر حد جلسة حداد أمرتنا كأطيع ذا لا إله إلا الله وجنة الدنيا والآخرة واتينا أمرنا إذيلكين طيب ولا ليال ابن مسعود عبد الله بن عباس أيضا وحكوف السري مركي إلهي يرف الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أيها وحير يعني قبلها وناكسا فالصالحات قبلها وناكسا واكو قانتات كأه صالحات هذا القرآن كما قشان وامحي وقانتات قانتات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحليه وكو أطيع رجودا هوينك وناكسن أما قبض وناكسن وقبض ننكيذا أطيع ذا طبعا وحال يري لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وحلو أطيع يا ومعروف لصعو وحول بميان كو أطيع يا معها وحول بكو أطيع ميسي لكن وحول بوناكسن بات كو أطيع إسا وح مع الشهد وكفر لكن ألا لا أطيع يا إساق ألا كوين لكن إساق وكفر مايو لكن قبضوا إن أي دائما كده دا شو السمع والطاعة ووح أماما قبل هذا إياس أي كل دردار ما يسول وقت جبا الدبع عرايا تنشناد إيه تنلحاد وحد هذه ساعات إلى لسابي لذا هي لوقت طعامه والهدوء عنه عند منامه وقت وحنا وإن كتحدرتها شقو كما قنيهي وصو شقينا يا بنانكو جرا واتقانا وقتي اما شقو اديا قدد قراعدي عشده واتقانا وقتي او باهي هي وان كتحدرتا ميسك اي سارنادان markuu soo diyaar garoobo miiska waa in qadadii ama quraacdii ama cashadii waqti u baahan yahay hooyo ilaali bay tiri saddexda wajbo waa inaad aad uga taxadartaa teeda kale isagoo daalan buu ku imanaya maxaa wacay banaankiibu idinka oo dhan idinkaga soo shaqeynayaaye waa in aad hooyo ilaalisaa huduu markuu raaxada u baahan yahay oo uu rabo inuu nasto hooyo ilmaha qol kaga xaray ama banaanka ka geeyo hooyo ilaali labada ilaali fiir gabadhu ninka waxay ka dhigtay boqor ayay ka dhigtay isagana muxuu ka dhigayaa yaa wallahi wax abaal guda raga ugu fiican waa idin sheegayaa ragga waa inaad dhoobtaan oo aad sasabataan oo aad ma aragtaay u roonaataan way idin roonaanayaan sida aad sameeysan si ka fiican ayay idin sameynayaan maxaa wacay rag walba ana iska cabiraaya waxay tiri tan toddobaad iyo tan sideedaad waa inaa ilaalisaa gurigiisa maalkiisa oo aad la socotaa nafsadiisa ehelkiisa iyo ciyaalkiisa waa inaad aad u ilaalisaa tan sagaalaad iyo tobanaad waxay tiri amarkiisana ha caasiin oo ha ka hor iman sirtiisana waxay tiri hafidinin wixii dhexdiina dhaca guriga waxa yaala wixii yara ilaahay ma aragtaa gurigan ay asraar guriyo dhan waa wada asraar iyo sir hafidinin bay tiri hafidinin maxaa wacay wax ka xun male ninka wixii saaki guriga uu ka sameeyay markuu banaanka ka soo maqlo khalaas gurigaasi tuwa baaba'ay hooyo ilaali waxay taqaanaa waa hooyo guri bay ugu yaraan 30 sano soo haysay wixii oo dhan bay taqaanaa waa khabiirad waxay og tahay waxa guriga uu ku waarayo uu ku raagayo iyo waxa guriga burburinayay og tahay dardaarankaas 10kaas halkaas ay ku dhamaadeen ma 10kii un bay ku daysay maye ee suubisna waa ugu dartay waa hooyo wanaagsan
gabadheeda ka sabri laadahay waxay tiri marka dabadeed waa 10kii ogow waxaad ku dartaa ittaqi ma'a dhalika 10ka kadib waxaad ka cabsataa oo aad iska ilaalisaa al-faraha in kana tariha inaad qosashid oo aad faraxdid oo aad dhildheeshid marka uu murugaysan yahay khalli balak iska ilaali inaad qosashid ninka murugaysan oo ama dadkiisa dhinteen ama wax ka halaabeen ama shaqo laga soo cayriyay ama rag ay soo khilaafeen oo wadnuhu karkarayo xanaaqayo garab u baahan de sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii lagu soo dejiyay iqra oo jibriil uu ruuxay iqra oo la gilgilay isagoo naxsan oo nafsadiisa u baqay intuu soo orday isduuduubay haday khadiija qosol la dhici lahayd ka waran ya reerku waa kala tagi lahaa laakiin waa dejisay iska ilaali bay tir hooyo marka uu murugaysan yahay inaad hortiisa ku faraxdid wal iktiaba indahu in kana fariha haduu ninkaaga faraxsan yahay isagoo qoslaya oo ma sha Allah haduu ku soo galo adigoo murugaysan inuu ku yimaado hooyo la qaybsay leedahay fiiri gabadhay waxay baraysaa waxa la yiraahdo iithar inay u doorto ninka waxa wanaagsan mawduuceen horta intaasu inuu ekaanaya waligu soo noqnoqonaya aad baan u jeclaa inta in ka badan inaan idin la hadlo inaan idin hortaagnaado hor istaagiina laga dhargi maayo ilaahay kama dhigo hor istaagan kii ugu dambeeyay waynu isu soo noqoneena daa'iman aad baan idin jeclahay ilaahay dartii waan idin jeclahay waxaan rabaa khayrka maanta aad uga imaadeen adduunyada aad meelo badan isaga imaadeen waa dardaarankayga ugu dambeeyay inaydan joojinin khayrku waa loo ordaa khayrku waa loo dhaqtamaa nafsada loo huraa maalka loo huraa hantida loo huraa xoogga loo huraa sida aad isugu kaalmaysateen khayrka ee aad qaacada u buuxiseen ee aad u soo wada xaadirteen idaylkiin dhaga wax maqle iyo laab wax weelay u tihiin in aad ku waartaan aydan ka caajisin aad iska ilaalisaan dadka dhufayska idin kugu jira ibliiska hawada nafsada shaydaanka ay iska ilaalisaan jihaad aad maanta ku soo guuleysateen reerihiini ehelkiini ilmihiini meelihii qurxoona guriyihii daafi'a aha ee kululaad oo aad ka soo dhaxbaxdeen ilaahay dartii barafka u soo dhaxmarteen 12 saac in ka badan qaar ay u soo mareen ma aragtaayay de 18 saac u soo socdeen oo aad juhdiga u soo sameyseen dadaalka aad soo sameyseen inaad ku sii wadaan ilaahay idin kama khasaariyo in allaha la yudii'u ajra al-muhsinin ma anta wad ku guuleysateen ibliiskan wad kaga guuleysateen guusha inaad ku socotaan ibliis raali kama aha intaano dada inay maanta halkan isugu yimaadaan ay isugu yimaadaan li'ilaa'i kalimati allah wallahi inaanu raali ka ahayn nafsadu raali ka ahayn adduunyadu raali ka ahayn hawadu raali ka ahayn laakiin wad ka guuleysateen sida uga guuleysta ilaahay idaylkeen hayna wada guuleeyo wadankeena allah noo badbaadiyo wadankeena allah noo badbaadiyo wadankeeni dad baa khiyaano la maagan dad baa dib la maagan dad baa xumaan la maagan iyaga allah ku celiyo berisamaadka allah nagu soo celiyo wadankeena inuu ku asturneyn halkaas ina deeqaysay ina anfacaysay sharaf ku lahayn wax walba oo wanaagsan inuu ku sameeysanayne ilaahay inuu xiraayay wadankeeni allah noo badbaadiyo berisamaadka allah inuu soo celiyo gabdhaheena idaylkood wallahi halkaas ay ku sharaf lahaayeen halkaas ay idaylkood inta guurka ka dahday haday joogi lahaayeen wadankeeni maanta waa guursan lahaayeen ubad ka halaabay haday joogi lahaayeen wadankeeni maanta culimay ahaan lahaayeen inta xiran halka waxa kuma xirnaadeen inta daroogada baratay halka waxa weeyaan waa salaadii tukan lahaayeen inta caasiga ah baaribe halka ku ahaan lahaayeen wadanka inaan facaye wadankeena allah inuu celiyo inagoo barakaysan gacmaha is haysana hal ummad ah ul iidirkeed jannatul firdaws xabiibka maciisa allah isuu kaageeyo hada wama kana min tawfiiq famin allah wahdah wama kana min khata'in aw sahwin aw nisyan فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.